أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan aad iyo aad idinku wada mahad celinayaa qabashadaad naga soo qaabasheen cashadan sharafta mudan walaalkeen Cabdinaasir ku sii sugootinayno horta sidii caadada ahayd waxaan ku furanaynaa quraanka kariimka ah oo inoo akhriyo Cabdirasaaq الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ياسين برنامجك تيفيga ka socda insha Allah oo inooga warami doona barnaamijka TV ka socda Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh aad baan idin salaamayaa dhamaan akhyaarta dhalinyarada reer Shafiil sida quruxda badan ay uga soo qayb gasheen caawa munaasabadan aynu ku sii sawirteynayna walaalkeen Cabdisalaan Salebaan Shofeer oo magaalada ka guuraya runtii magaalada waxa ka guuraya nin culus ayaa ka guuraya marka daadiisa yaa la soo eegayo isaga laakiin qiimaha iyo miisaanku magaalada ku lahaa mid aad u weyn runtii ahaa mar waa abwaan mar waa ciyaarto mar waxa weeye waa activist xagga qadiyadaha iyo Somaliland iyo kor u qaadideeda mar waxa weeye isku xidhaha dhalinyarada marka runtii magaalada waxa ka guuraya nin culus ta aan aaminsanahay in dhamaanteen soo xashreysana waa markaas aynu caawa isugu niminayno niraahno walaalkeen aynu sii macsalaamayno maanta magaalada ugu dambeynayso in kastoo aan filayo in aanu ka maqnaan doonin marar badan oo ku soo noqon doono odaygii iyo family bay degan yihiin marka runtii waa munaasabad aad u wanaagsan Cabdinaasir waxaan leeyahay ilaahay ku garab galo meeshuu tagaba ninka muuqanaya weeyaan marka safiir baynu ku yeelanay magaalada la yiraahdo Bristol Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan halkan doonayaa inaan Cabdinaasir Salebaan Shofeer aan ku sii sugaatiyo adeerkayga qaaliga markaan yaasin kelmad buu ka tagay Cabdinaasir ruucadaayo qori ma tabaysay waxa kale oo matalaya aniga iyo family iyo reerka iyo intan magacooda ku hadlaayaba أنا مع قاضي رقعته وحنا له سولة هذا عبد الناصر ونين عادي هذا نقول قاليا حق رقعته حق مقالة ده والله إني وين بنتبهنا رتي برك الله الله برك حنا هاي عبد الناصر مقالة دي بيان رقعته هذا بيان برك تبادل سبيس كا هو بناني هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت والسلام يا رنتي هذا الكي وحيري دتكي جهرية وديري رنتي إن قاليا نجت جيا laakiin adduunyada waxa isku timid wada danbay guuraysaa marka kulli baninkii xaqaas u danmooday waxaan leenahay insha Allah meesha tagtaba Ilaahay kugu nabad qabgeeyo waan inaan tabi doono nin nagu qaaliya Cabdinaasir ama Casaaya saaxiibkeena waa la wada og yahay qof walba meeshan joogo og yahay inuu ahaa qof qaali ah laakiin taan raba inaan doonayo inaan idinku yiraahdo waxa weeyaan why isaga special u yahay bal isweydiiya jawaabtu waxay tahay waqti badan uu ku shaqaysan lahaa reerkiisu adeegi lahaa oo lacag sameyn lahaa ayaa waxa uu galiyay in community-ga uu ka noqdo qof active ah positive ah tusaale ahaan markay noqoto sportska wuxuu mar walba jecelaa waqtigiisu gelinay in dadku isu keeno maxaan ku raahdaa social cohesion wax la yiraahdo isdhexgalka bulshada ku dadaalayay markay noqoto in masaajid tusaale ahaan masaajidka markay noqoto in dhaqaale loo ururiyo ninka ugu horeeya dadka la soo hadli jiray buu ahaa oran jiray haye lacag aan isku dardarno masaajid hibil lacag aan geyno markay noqoto afurinta mid iyo labaan ka soo qaaday markay noqoto afurinta in maxaan ku raahdaa kaalin weyn uu ka qaadan jiray dadka magaalada ku cusub dadka tabaalaysan dadka xanuunsan sportska warkiiba sabada intaas oo wuxuu ahaa gudoomiyaha sportska marka waxaan doonaynaa maadaama uu saaxiibkeena naga tagayo inaan ku kaalmayno ducada kaliya laab aan u duceyno meeshuu tago inuu maxaan ku Ilaahay subhanahu wa ta'ala waqtigiisa iyo maalkiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u barakeeyo awlaadiisa inagana aanu noqono laga helo qof booskiisa buuxinay dad badan ba booskiisa buuxinay waan ognahay oo ay wada shaqeyn jireen Ilaahay dan ay wada shaqeeyaan laakiin aynu noqono meeshan joogno inaan ka sii horeyno talaabadu qaaday mid saddexaad aan sii qaadno mid ka sii horeysa aan sii qaadno marka Cabdinaasir waxaan ku leenahay saaxiib Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku barakeeyo waan ku soo duceynaynaa waan mahadsantiin Cabdinaasir Salebaan ma sha Allah nin aad qaali noogu ah oo magaalada dhan dabcan ay tabi doonto marka waxaan leenahay insha Allah Ilaahay ku nabad geeyo halka uu guureyso marka wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ninka radayna sunaaro ilaa caawa ka faalooda ama sheega wuxuu ma soo koobi karno waa nin aad u ballaaran oo gurgurshaaya Cabdinaasir waynu ducaynayna waxaan halka tagta Allah ku barakeeyo ودون والله الله كعجب بركيه
boos weyn baan ugu banaanaaday haddana xadeedu aniga bartaa igu sheegay miiska markii guri waan guuraya wallahi waan naxayba shoog bay igu noqotay warbeed waa la timo kom siguul warbeed way guuraya way ka soo gooday marka horta de waa ninka intaas soo dad iyo in kala soo haleelin kulansiye miisaanka qofka miisaankiisa Cabdinaasir waxaan baynu ka dareemi karnaa deynteena oo isu keenay caawa aan hore isugu iman jirin si dheereelan aan isugu iman jirin waynu ducaynaynaa nin wax badan oo khayr ah horkacay oo runtii dhalinyarada isku hayay udub dhaxaada nin adaga wanaag badan iyo ku hirasho badan lahaa ayadoo la badan yahay oo hadalkan odayaasha iga dambeyn doonaan waynu sii ducaynaynaa waxaan leenahay Allah ku barakeeyo saaxiib halka tagtay insha Allah dhabarkaanu ka sii dharbaaxna Allah ku barakeeyo Cabdinaasir Salebaan Shoofeer runtii waxa weeyaan waa nin sharaf leh oo karaamo leh oo xushmad leh oo waxtar leh dadkeenuna waxa wanaagsan in oo ku dayasho leh marka waxaan anigu runtii aan oran lahaa caawa aan samayno maadaama reer Shaafiil aynu nahay halkan fadhino qofka wax qabta ama qofka community-ga sharafta karaamada ku leh dadka kale foundation bay ugu magac daraan marka aan Cabdinaasir foundation oo kale oo adii badankeeda leeyahay anigu ugu horeynayo waliba qofka ugu contribution-ka ugu horeeya bixiya aanu samayno hadii Ilaahay idan ka dhigo aanan u ducayno runtii waxa weeyaan intaas uu inaga mudan yahay inaynu u ducayno Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meeshuu joogaba Bristol iyo halkan uu inala joogo mar walba Ilaahay ha xiftiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga iyo ubadkiisa oridaba ha u xiftiyo runtii markan magaalada iimaanugu Cabdinaasir waxa wallahi dadkii aad ka soo dhaweeyay magaalada aan isku barannay marka waxa nin aad u qaaliya wallahi oo dadka isku xidhka iyo isku wadka iyo migrants organization kodhan ku wacna marka aad iyo aad maalintii ii sheegay wallahi waan ka calxumaday laakiin waan u ducaynaynaa Ilaahay meeshu tagaba ku garab galo Cabdinaasir wuu sii ducaynaynaa nin culus bay naga tagay insha Allah de wuu soo noqon wayno iman laakiin hadda waa u sii ducaynaynaa ama bixinaynay gudoomiyihii iyo saaxiibkii dhalinyarada Shafiil Cabdinaasir Shoofeer aad iyo aad qiimo ugu leh Shafiil ahaa oo wali ninkaas aan hayn nin dhalinyarada ku saabsan in odayaasha la ilaaliyo ninka koowaad habeenkii markaan xaraabayno oranaya xaraabayaan siigay abtikaraysatan ayuu ahaa way ognahay kulay nin sharaf leh ayaa naga guuray magaalada oo u ducaynayna meel kasta uu tago iyo meel kasta uu socdo in Ilaahay ku barakeeyo magaaladiisana kullu way ognoon wanaagsan oo wuxuu noqonayaa sida aynu jecelahay xaqana loogu jeclaanayaa meel laga fog ma tagin aad iyo aad baan idin salaamay dhamaantiinba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين آديات بني وسلامنا دنين صاحب كانوا قالئة أيان نجت جيا مركا هذه المرة إن كورجينو مركا قدومي رقعدا أيان كورجين دونا إن شاء الله ده ما نكن ما أدونك هذان ده هاف كان حتى هذه وصين كرر مركا لكن ده أنتي تفرتين عن سمين دونا إن شاء الله وحنكورجين دونا دولاية عبد الرزاق waxaan rabaa inaad iga guddoonto hadiyadii thank you بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرت هذا الكبدنا ولا سؤال مية أنا وحنا نرى لها لبك المدود وكسب سن عبد الناصر ينتو داها ركعداء same time وقت بانو كسو بيرتيم كان markaa ka bacdi in door ayuu ha gudiyo kala badan ayuu ku jiray laakiin sanadkii ugu dambeeyay isaga ayaa ka mas'uul ahaa Cabdinaasir wixii uu qabtay inta uu ahaa gudoomiyaha waxay la mid tahay intay jirtay rugcada oo dhan waxay qabteen hadii la ku roon yahay sanado badan oo adag oo waqtigii corona ayuuna dhaafiyay Ilaahay khayr ka siiyo waa ninka kaliya ee u soo iibiyay teamka macnaha de uu organize gareeyay in qof kasta uu yeesho dar isaga u gaara oo ana teamkii ugu adkaaba noqday rugcada hadii la ku roon yahay marka maanta waxaan ku leenahay aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Ilaahay ka saamiriyo meel kasta tagtidna de saas umad ka sameynaysa waa ninka kaliya ee Shafiil de sameeya organize gareeya wixii ku saabsan xagga sportsiga kubadda haday tahay charity haday tahay wax kastaba marka waxaan leenahay jazakallahu khairu jazaa Ilaahay ka saamiriyo وانا دي سو نقول كل بو يمنى شفيل مركز تمدين يو ستيل ويلكم ان ciyaartid barakallahu fiikum
waad kusoo dhowo insha allah baarak allah fiikum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin aad iyo aad baa idiin salaamay ilaahay ha idin sharfo ha idin karaameeyo sidaa ii sharafteen ma istaahilo intanoo ammaana oo meesha laga sheegay mana istaahilo intanoo dada inay ii yimaadaan laakiin waa mahadsantihiin markaad waxaa soo dada aragtid waxaad odhanaysaa nin go-aankaad qaadatay ma khalad buu ahaa talo laakiin insha allah shafil waxa weeye stiil familygii baa degan waan imanayaa laakiin sidaynu soo arki jirnin baynu soo arkayn dhammaantiin intii ka soo qaqabshay aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahay ha idin sharfo dhammaantiin aniguna waa idin mahadnaqayaa waanan idin wada xasuusanahay insha allah rag badan oo shaqooyin lahaa rag badan oo hawlo kala qabsan lahaa ayaa maanta inoo yimi dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxa la qofkan dadka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waa mahadsantihiin igana raalli ahaada waqti badan haddaan idinka qaatay